Assalaamu calaykum. Wuxuu ahaa mid ka mid ah diktaatoradii ugu arxanka darnaa taariikhda inta la hayo. Magaciisu waa Joseph Stalin. Wuxuu noolaa sannadihii u dhexeeyay 1887 ilaa sannadkii 1953. Wuxuu ahaa hogaamiyihii Midowgii Sofiyeeti ee Ruushka sannadkii 1922 ilaa dhimashadiisii. Taariikhda qaar waxay sheegeen inuu Stalin sabab u ahaa dhimashada dad ka badan 60 milyan oo ruux, laakiin xitaa kuwa tiradaas u arka in la buunbuuniyay waxay hoos u dhaaf waayeen in hogaamiyaha kelitaliska ah intii muddada hayay oo ahayd 30 sano uu dilay dad gaadhaya 40 ilaa 50 milyan oo muwaadiniin Ruush ah. Tirada intaas in le'eg kuma aysan dhimin dagaalkii labaad ee adduunka, waxayna u badnaayeen dad si bareer ama si toos ah loo dilay. Waxaa ku jiray dad si qasab ah deegaanadoodii guryahoodii looga ceeriyay, iyo dad lagu xiray xeryo ku yaalla barafleyda gobolka bartamaha Ruushka dhaca ee Siberia. Dhulkan oo ahaa meel aanay nolol caadi ah ka suurtagelayn, ayuu Stalin ka sameeyay xeryo musaafirin jiray dadka mucaaradka ku noqda. Muddo maalmo yar gudahood ah ayuuna ku naf waayi jiray qof kasta oo loo musaafiriyay xeryadaas cimilada ka jirta awgeed. Sannadkii 1937 ayuu madaxweyne Joseph Stalin ku dhawaaqay xeer cusub oo la magac baxay Xeerka la Dagaalanka Argagixisada, waxaana xeerkan ku jiray qodob dhigaya in dil lagu xukumo qof kasta oo lagu helo eedeymo la xiriira argagixisada. Arrinta kale ee xusidda mudan ee xeerka Stalin ku jiray ayaa ah in aanu oggolayn in eedeysanuhu yeesho qareen difaaca, isla markaana yimaada maxkamadda.